inay naga waashay dadka reer galmudug wadan ma waalan maanta anu gaariga saarana waa fiican yahay markaan saarana waa xun yahay Soomaalina ku soo baranay galmudugna u daranta waxaan gara weynay in madaxweynaha galmudug uu shabaab leeyahay maaragtay uu leeyahay isbahays inuu shabaab sympathy u hayo annagana dhaliila nabeen abuura been naga sheega wadin furanta wada siyaasadaas kale waxyaabo qaarkood maan xoogan u bedelna xaq ahlu sunna xalkeedana anigayda waxaas dad kaas wuxuu leeyahay xumaan qori daba qoladiis wada oo galmudug lagu gubayaba waa ku waarabay waa kuwaas saxan u leeyahay kuwaas saxan kii qori daba sidaba projectii villa Soomaaliya abaabulatay oo ay rabto inay doorashooyinka ku carqaladayso oo ciidamada meesha la geeyana marka lagu laayo ahlu sunna ma ahana shacabka marka lagu laayo حنقولن maalintan kursiga aan rajo ka qabo oo anigu aan in la ii xoogo ama anigu aan ku fadhiyana arada galmudug u fiican maalinta aniga rajo aan lay dooranayn ama aan arko inaan meesha aan kursi aan ku fadhina ama aan cid kale soo raratana galmudugan boqol ceebood islahayn u yeelaya حنقولن aniga kursiga gurceel galaan garan waay waa jannadii al-shabaab ay naga raadinayeen oo kale taasiyaasi kuma tihid dadkuna ku arag galmudugna waxba dhibi kartid adeer eedahaadii hore waxba ha ku darsan horey baa eedo badan ku saarnaayeen dadka meediyaha mariyad ali shakhsiyaadka tilmaama ma ahi dadka ceebaha shakhsiga sheegana ma ahi inaan ku kaftamo barnaamijka waa suurtagal laakiin Soomaali uma soo mariya baalki mar raba inaan hoos ugu dago waxaa la rabaa in dadka galmudug la isku diro oo fidna dhexdooda la dhaliyo oo dagaal aan joogsan oo sababa extension markii farmaajo uu hirgali waayay extensionkii caadiga ah in la yiraahdo extension kale iyo muddo kororsi kale oo ah dalkan doorasho kama dhici karto oo galmudug baa saas hirshabeelle beledweyne la kala fadhiya meel hebel baa saas in inta la yiraahdo arintaasi doorashada lagu carqaladeeyo waxa qaylinaya kuwa tartami waayay oo tartan soo bandhigno tartami waayay ninkii dhuumanayo dhabarkiisu muuqdo kalaatiin laakiin nooca aad tihiin hadda waa la idin bartay dadka si baranina